reerka ka dhalatay maanta waxba qaran ma reexan waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland ma yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa waxaan riwaayahay formula aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay wiil ani markaas ilaahay baa waafajiyay qalin warqad ma haysan waxaan ka soo shaqeynaa markaan arkay wax akran yihiin waxaa eri gado dib u heshiisiin baa markii hore la horta la galo oo Axmed Madoobe taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka la soo celi ciidanka la saaro oo process dheer isagana oo I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara waxa ay haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aan kala saarno Garbaharey in fikradaas marka halka joogno waa la develop gareynay Garbaharey issue iyo gado issue waxaari maamul gobol marka cid hawshaas fulinaysa awal la ogeyn waxaari maamul goboleedyada hadii hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jirin Jubbaland ay ku jirin arinta ka war waxaan qaadanaynaa waan inay qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo Garbaharey maadaama doorashadu socoto oo Garbahareyna aysan ka dib dhici karin doorashada kale oo caqabad noqonayso waxaan inay muddo bil ah Garbaharey waa lagu dhameyn karaa si loogu dhameeyo maayarka hadda jooga gudoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday kii hore Axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo waliba Etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celin Axmed wuxuu taagay ka hal soo celiyo iskaas sharciga iyaguna kan labadaba ha laga qaado mid community-ga isku raacsan intee keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqdo midka hore waa la fiicnaatay waayahay buu yiri waxaan shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma ka tahay buu yiri curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay Dooso Mareeb madaxweyne ku xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qorqor waxaan ku iri arintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ila dadkii dawladda iyaga wadanka madax ka ah ma ku xad gudbi karo waxa ay farsamo kale aan galaayay waxay dheer hadaa wax xalinayso waxa kama qabno iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay Axmed oo u hiiliyo waxaan ku eedaha noo dambeysay hadda aan xalin wadadaan aan arkaa in wax lagu xalin karo maxay la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaadeen laakiin si unanimous wuxuu yiraahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxaan in ila qaadateen madaxweynaha uu tago sheegay ana ballanta xataa soo qabtay waxaan madaxweynaha inaan iyaga arkayna u sheegay iyagana arag baa inta kuma ekaana waxaan la hadlay Cabdirashiid Janan oo jooga bolad xaawo waxaan ku yiri waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina xukumayeen oo xoogni laga saaray waa ogahay laakiin waxa ka maqan hadaa xoog ku soo ceysan kartidna waa wax la gartay hadaa xoog ku ceysan karna xaalad waa lagu ceysaday niyo bahasha siyaasad baan ku dhuganaynaay ciidamadan iyo waxa kan dad inay naga dhintaan muhiim ah ka daayay ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan ka codsanayaa hadduu hirgelayo inaan la qaadin waayo Axmedoobe waa madaxii Jubbaland laakiin qadiyadu waxay ka dhex taaganta reer Gado oo waliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kale aan garanayn u kala baxay qatarteeda leh ma garat oo is haysta waxana uu sheegay waxa is haysta hadii aad dhihileed ogaadeen meesha muuba jooga Gado waxa isku haysta waa raaskaagi dagaalka dhacay dadka effect gareey waa iyaga isagina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo Axmedoobe la socotay oo fartaa kamid yahay iyo wasiiro iyo gobornarkii Gado Axmedoobe oo dowladda Jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyay inay arintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tagay Axmedoobe waxaan ku iri wixii badnaa oo sheegi jirtay oo carada ka muuqatay yadii raggaaga inaan liqdaan raba tan inaan la qaadataan anoo kiligay aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland baa wada tagnay wuxuu yiri hadaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid
oo Cabdirashiid waa u sheegay culayska adigu ku haystana qayb anaa ka dejiyay dadka waa engage garay wuxuu waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexanay berri subax shirku inuu berri dhamaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saarnay farsamo ah waxaa la diyaarinayo subaxnimada maalintaas waxaa in la qorsho ahaa in la diyaariyo communique subaxdii markaan imid buu aniga iyo Axmed Qorqor wuxuu yiri waa in raba waa u tagnay wuxuu yiri wixii aan xal isku ogeyn ma shaqeyn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad Axmedooba saxiixay ama wasiirkiisu ma qaadanayaan waxaan ku iri madaxweyne shalay reer gado intii ninkaan xukumi jiro muddo dawladda ka tirsanaayeen oo hadda qayl kama jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxa ku filan wadadaas aan qaatay hal raac ma yiri waxaan u baahanahay inaan laba wiil ka bacdi isku soo noqono waxaan ku iraamay taas suuragal ah marka arkay inay kala taagtaagan tahay ra'iisul wasaaraha la joogo waxaan halka noo hakiyo anagu aan shir aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo Axmed Qorqor aan meel fariisanay waxaan ku iri arintan xal bay u baahan tahay أنا ورت وحايري مدحوينه حجم ما هني أنا وحاي صوب بحضي هالشيسك إلا صحيح مرة لكن أنت أنا وذكرنا وضينا أحمد آد وحوقه ماذا إن مطلبات قل مذو شر لي سجون إنه بربرة رنتي وأنا بينفل حايل الدجان كي يدك هذا بعيب كتة وحاني الددال أنت أنا وذكرنا وضينا الصبح دي السجاء طبعا كميلا سهي إلا هبينكي دنب أرورتي لبادي ميامس كودي أنا يسوي عن كوجن الدال إن أنقنع إنه مدحوينه أنا وحني أحمد وأنا شو دينا قنعيه هذا هو المدحويني سوقني دال بدن ما سميني مركلية وحا سعون ويدي إن جدّو ومجعابه أو إذا جبلان مجعابين أما دولة مجعابه ما هنروح كلام جرام بير أحمد وبشركة أنتو نرفز كنا قضية ويروح أنا إسكا كيف الصحة دي لأنك اللي تلنا يا عن هاي مانطر لأنك أسكور وريجا بس أنه كوعد سيه مين دي هوا أركت ما شركة كعرض بقى ليري ما أي سنجرينا حد يرى تايم markii uu baxay oo isku dayno madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada Garbaharre maayarkeedii inuu farax ka qaado oo noo adkaato aniga maamulo maahan cid kale maamulo shir luqad saas shirkiina qorqor waska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baba noqday wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shirki la badbaadiyo sida lagu kala tagin maxaan kula qabtaa Axmed Madow ila aad weyn waa israacay Axmed waan tagnay waxaan ku iri waxaana jiray maxaa tala wuxuu yiri hadee laba mid ani ii keenu yiri gado Jubbaland ma aha waxba kama qabo yiri ciduu rabo magacaabo madaxweynaha warqada soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada oo maamulayo hadday Jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali karo wax weeye gudoomiye degmo oo annagu aan soo select gareynin ya dadkii deegaankana aysan doorashooda sida caadiga ah ku soo bixin oo sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kala keentay waliba dadka meesha joogo keenaya waa dadkii madaxweyne Cabdullaahi Loyalka oo ahay gudaha joogay anu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yiri warninka imaanaya adiga keensan ay xataa hadii wili aragtina maamush formulada aan raacin ila annaga si kale u magacaawno male dawladda dhaxama magacaawdana ceeb bay ku tahay nidaamkii federalismka meesha ka baxay gudi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxa u baahanahay inaad arinta sida laga daayo habeenkii marka Axmed kan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen waliba madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu madaxan celinaya dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay ba ordaay gada kaliisay wax leeyahay
horta dalka la rabo la leeyahay hal la xalliyo dadka ay sheegayaan garbahaarey xallin weyn ina ogaataan raba wuxuu yiri waa tagay waxaan idhahdee madaxweynaha hadduu yiri waa tagay anagu faraq kuma dhigi karnee markaas haddana wuxuu damcay sida loo tagay in annaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan idhahdee waxaan dhahnaa annaga ma garanayno inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaa diiday marka waxaad tidhaahdaa wada hadalaa socda shir damaa la isugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadlay wuxuu ku wareegay waa la sheegay waa aragtay cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha Hargeysa waxay yiraahdaan baa la yiri waxa aadaanka hore isu kaya keen markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yiri saqda dhexe wax uu ku hadlay aan la garanayn marta dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenkii waa wax badan oo aan hadda aan garanayn oo dhuray madaxweynuhu waa tagay intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogid 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma haboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii Xasan Sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dawladdan ay tahay dawlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waan u maleynaa internetka ku aragteen oo muujinaysa inay dawladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anoo ajendaha noogu jirtay lama soo gaarin waxa gadaa garbahareey dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday aan waxaan isleeyahay danigay soo waxaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo in 8 February wax la hajirin wuxuu yiri 8 February wax la hamin jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka inta ka ogol yahay baarlamaanka ba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda ina dhahday shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dawladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha intii Xasan Sheekh gartay ma garan weyd inta samee waa baxay aradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay oo tuu baarlamaanka yiri Siciida waxa iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood leeyahay marna leeyahay maamul goboleedka u horeeyay oo u weynaaba tihiin roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka wax garadka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandow Soomaali meel ku kala tagaysaa ka talin waxaan isri bal intii karaankaaga dadaan waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalna haye 8 maxaa dhacay yiri waxa ma dhicin haye waxaan 8 waa u jeedaa inay waxba dhicin ama nimanka ragga hurdaan oo markoo sidoodii ka caamayro gidaarada ka daatan waxyaab kale habeenkii dhow markii waxa dhaceen shalay miyam soo wacay wuxuu dhihi waxa tiri weeyr nimankii hawee gidaarada ka soo laa wax soo daatay ma aragtay yiri waxa ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegayo anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka dahsoon horta ina saas ina u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan ma leh aniga waa research garay waxaan ciidanka intee leeyahay waxa la sheegay ciidamada Turkidu tababaray iyo kuwa waxa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dadka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaabka ma aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwa lama tigi karo war gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furwaayeen niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hadda
أول واحد الله سبحانه وصاص بيجي كرتو ذكر البند الأساس النهار لكن وقال السومالي نقاني ما إلا الشباب سيكون اكتوال أركي السومالي سما إن إسقرحيان وذلك قيورعان niman kan aniga sida loo tababaro shaki weyn ay iga jira marka wax naxariisa oo ileeyihiin ma jirto horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaad si fiican u fahamtaan dadka waxa xun looma sheego belad laakiin waa qarsan weyn run aan sheegayaa maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco oo qabaa'il isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiyo annaga dambiilayaal noqonayna nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal la ixtiraamo 17 September alamtaraas oo dhaaftay 19 February ka dambeysay habeenkii markaan doodayna wuxuu dhahay inda cadde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runtaas ka sheegayaa ayaantii horena wuxuu yiri أتصابون كنت كرينا ما أنتي دوين وحبوش شيء لا ولا مربو وحبا دعي أنا I don't know عدو شقينا لكن reality كمرك الواحد له وحن كوي بالجركة ده صور نينك وحور ربع هذا عدة كير سيسي إلا المضاح دي انتهى هذا شاطئ ليه لا الدولة مجرد مضاح دو هل ليس ما أنتي كور رسميشي مرايين وحل هاي مظاهرات بيس فلان ربنا منا بدينا ربنا نينك وحور هذا بس ما يصير قرطة كي ما لني مدي دعي والرئيس الوزراء صدق السنة برك الرئيس الوزراء هو أها أو علن كيسا أولولايا حبد اللي قلت عليه حاكم في السنة وحير عدي شرعية كهرتي مات طلع والله خاضع ورتا مدعوينها ماشي نوفر ليها literally كل أروى جيسين أنت هو لكن جيسين بدأ ستيل الربيع بس ميت كلام يا إذن كجواب بتوع محايا لي جيس ومتك حقنا كهلا حمانتنا ضدك جعنتك قفت maaha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uu san garanay runta marka inay sheego waxa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaya ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godinyaha ima goyseen haddaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar hadii laga wiswisay oo laga shakiyay oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunba ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad tor ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo Soomaaliya aan ka baqnaa horta reality ga ani sheegay maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayay mid al-shabaab sakeeyay wax difference u dhaxay male maalin walba waxaan ku jirnaa trap dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa ee madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horeeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo balwadweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihi u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadlay ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin ya waxa dhigi jiray muu wax cadeeyo alku markuu yimid rag kale waxay muu hadlo ninkaas ka daayay marka waxba jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamus karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyo iskala saarin dictatoriyad inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan
wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yidhi hadda tii u dambaysay wallaahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada ma imaanaysaan lafaheenaa uga baqnimo wuxuu yidhi dhuusamareeb haddaa ka nimid xabadaa ka dhacay may anaa awo waxba kama dhacayaan igu dhahay I don't know ciduu og yahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxaa meesha soo socda niman international la yidhaahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo HVM uu ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin aniga waxaan inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u maleynaa inuu daarood har u jiidayo run ayaan sheegayaa ha ku kalsoomina nin daarood har u jiidayo aan ma soo arag xataa mareexaan nin har u jiidayo ma soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya weliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo Puntland waxaan oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saarantay Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qaybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas oo sheekaya dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila ka xaysan lahaa oo sida hadda niman xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo hadda damiir yeelanayd horta idinkeena ii taala wixii dhacay 80maadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaan raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhacaano ku talinay Soomaali aan jecelnahay haadaha lagu dhaco ku talinay waxa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraama yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxa saartaan Puntland iyo jiritaankeeda naalisa wa salaamantiin wa salaamu calaykum waxaan iga codsan lahaa waa daalay inaa su'aal bi weydiinaysaan u maleynaa waxaan qariyo marka raali ahaada aad iyo aad marka hore sheegnay barnaamijku su'aalo ma lahan session madaxweynaha dadka kula hadlayay marka intaasaan kusoo koobaynaa madaxweynahana waa umad celinaynaa kasoo qaybgalayaashana waa umad celinaynaa habeenimo wanaagsan isku duubnidina daayartiyo haweenkow isku duubnidina darajadan ku gaarsi